السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذا سلامي عشر كانوا حنكون برانينا concept كمده object oriented programming أو لده inheritance وآد مهم marka inheritance وأديكو صور حاليا class كله معلوماتي كجري سيدا methods كي iyo attributes كي marka variables كي. Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming. Fundamental ومهم ويان. It allows a class a class to inherit sort حلو attributes key or variables key or methods key from another class. Class كله صور حلو. مركا class كله صور حلو حلها base class أما parent class بالها. Class كم حلها سنة حلها child أما derived class أيالها. base key وclass كاس دوشة يلا لبعضن class مركا والله class child classes أما derived classes. base class كنا حيرون كرنا مركا أما base class أما parent class. مركا يمكن أركن نتصالح سابسن inheritance جا. هل كانوا حينكوا هيسنا class student لده student ياس مركا وحنو صدرينا name key age key email key subjects كو أرضي وبرتو يو student ID كي. وكلاس عادي ونروح صبرناي وحولي هاي method كانوا print subjects وحو print كرانيا مركا subjects كو أرضي وبرانايو أو ليستي كانوا حويان display info ومركا حو display كرانيا معلومات كسابسان أرضيغا سيدا name key age key email key. okay. مركا class كان و student class سيسانو استعمالي كرنا وحكالون هايسانا teacher class teacher isna waxa weeyaan waxaan u soo direynaa name key age key iyo email key iyo subject uu macallinku dhigo marka methodka ugu horeeya waa teach oo print gareynaya macluumaad ku saabsan subject uu macallinku dhigo ka kalena marka waa display info oo print gareynaya macluumaad ku saabsan macallinka sida name age iyo email halka waxaynu ka arkaynaa marka in macallinku uu leeyahay method display info oo la mid ah كأرضي وليه هاي class كأرضي display info وحاجة halkan code duplication سينو تاغو هرتقنو معلومات كم حينو gain كرنا مركا parent class حيث ما يسانينا مركا another class حنو بحنينا person بينو بحنينا مثلا class person مركا init ينو سمينينا inidka marka waxaynu geynaynaa waxyaabaha ay studentiga iyo teacherka ay wadaagaan waxay wadaagaan baynu niri nameka ageka iyo emailka waxaasoo dhan intaan halkan ka qaadno ayaan geynaynaa halkan aan comment garaynaynaa okay waxaynu u baahanahay marka inaynu ka naqaadno saddexdaasba saddexdaasna waxaan geynaynaa halkan okay marka waxaynu ka saarnay halkan studentigii namekii agekii iyo emailkii okay macallinkana waan ka saaraynaa intayna ka saarin marka waxaynu ognahay methodkan inay classka studentiga iyo teacherkuba isticmaalayaan inay the same method isticmaalayaan marka isagan intaynu qaadno ayaynu halkan comment ka dhigaynaa ama waan ka qaadinaa isagoo dhan baad rabno control x waxaan geynaynaa okay marka halkan waxaa inoogu hadhay teacherkii inaynu comment garayno kuwanaan ka saarno name age teacher waxaa kusoo hadhay keliya subject oo ah specific to the teacher keliya kaas leh methodkan waan ka tuuraynaa halkaa marka waxaa inoogu soo hadhay teacherka wixii isaga gooni ku ah oo ah methodkii teach iyo subjectigii studentkina waxaa inoogu soo hadhay isna markaa wixii specific to the student ah ama studentka gooni ku ah kaasoo ka ah subjectska iyo student ID iyo methodkan print subjects okay
wixii kale waxaynu geynay person marka sidaan u soo dhaxlaynaa habka loo dhaxlo waxa weeyaan parenting classkeed halka dhexda gelinaysaa hadda marka student wuxuu noqday child class of person wuxuu noqday parent class teacher kana sidoo kale isagana halka waxaan geynaynaa person intaa markaynu samayno marka macluumaadkii waxaan ka khalday macluumaadka halka inaan ka saarna ma aha name age-ka iyo email-ka waxaan ku celinaynaa meeshoodii halkana sidoo kale aan ku celinaynaa haddaba markaynu samaynayno object student ama class waa inaynu macluumaadkan usoo dirnaa classka laakiinse siduu classkani ugu yeedhayaa parent classkii waxaanu isticmaalaynaa waxa la dhaho super classkii oo ah marka parent classkii initkiisi aynu u yeedhaynaa initkaas waxaan u diraynaa marka macluumaadkii ahaa name age iyo email isaga inoo samaynaya macluumaadkii sidoo kale teacherka markaynu u yeedhno macluumaadka usoo dirno waxaanu leenahay markaa superka waxa weeyaan yacni parent classka u yeedh initkiisa adoo markaa macluumaadkan isticmaalaya name age iyo okay intaas weyn muhiimadda in la sameeyo marka halkan commentiga waxaan u saaray si aad u aragtaan laakiin iska delete garayn karnaa kana sidoo kale halka waxaad ku arkaysaan studentigii iyo teacherkiiba kalaasadooda way fudaadeen waxay noqdeen light classes macluumaadkii duplicationka ahaana waxay ka soo qaadanayaan parent classkii oo ahaa person class okay hadda student markaynu samaysano student 1 student waxaynu u diraynaa markaa magacii agekii emailkii iyo subjectska ardaygu baranaya list baynu ka dhigaynaa matalan hadaynu dhahno subjectsku ardaygu baranaya marka adigu muhiimaddu waxa weeyaan macluumaadka haddaan usoo dirayno axmed iyo ageka iyo emailka intaba personkaas u diraya hadhow isaga noo soo samaynaya objectigii marka muhiimaddu waxa weeyaan iminka axmed iyo ageka iyo emailkuba kuma jiraan studentiga classka waxaan ka soo qaadanay parent classka oo ah person hadaynu dhaha marka student 1.display info siaanu hore usoo aragnay display info kamid ma aha student classka laakiinse wuxuu ka soo dhaxlay parent classki oo person ah hadaynu hadda run dhahno halkan waxaan iloobay inaan ku daro student ID-gii marka waa inaan ku darnaa student ID-gii markaan u yeedhayo let's say subjectskii kadib student ID-gii oo ah down to through a v oo kale numberka studentiga haddaan mar labaad run garayno ka macluumaadkii noo betel gareeyay methodkan waxay nidhi wuxuu ka imanayaa parent classka okay method ka imanaya studentigu isagu waxa weeyaan haddaynu dhahno student1 dot print subjects kan waxa weeyaan marka wuxuu ka imanayaa student classka aan run dhahno isagana marka axmed is studying subjectskan wuxuu ka imanayaa student classka parent classka ka imanaya hadaynu u gudubno markaa teacher haddaynu samayno namekii
age key email subject uu macalinku dhigo intaas baynu u baahannahay hadaynu ku noqono name age email subject marka macalinkiina halkaasaan ku samaysanay haddaynu comment garayno studentiga oon macalinka print garayno teacher1 dot display info saynu hore u sheegnay wuxuu ka imanayaa parent classkii teacher1 dot teach methodkaasna wuxuu ka imanayaa teacherka teach wuxuu print garaynayaa subjectku macalinku dhigo display info isna wuxuu ka imanayaa parent classkii ayuu ka imanayaa hadaynu run dhahno waxaynu aragnaa macalinka magaciisii iyo emailkii oo ka imanaya parent classkii iyo methodkan oo ka imanaysa teacher classka sidaad si fiican u fahamtaan markaa waa kan codekii oo image ah waxaynu haysanaa parent classkii person oo aynu u samaynay hal method display info oo ah methodka ay soo dhexlayeen labada class iyo attributeskii name age iyo email student class markaa inuu soo dhaxlo classkaas parentiga personka waa inuu halkaa gudaha aynu ku qornaa person parentheska dhexdiisa kabacdina waa inaan u yeedhnaa markaa super classkii oo ah parent classkii inagoo u dirayna macluumaadkii name age iyo email student waxaa gooni u ah attributeska student id iyo subjects iyo print subjects oo method ah teacherka sidoo kale isna wuxuu soo dhaxlayaa macluumaadkan oo dhan attributeskan iyo methodkan waxaa kaloo gooni u ah markaa waa subjectiga iyo methodkan teach method isagoo hab kale aan u sawirnayna waa ka personka wuxuu inoo hayaa attributeska name age iyo email iyo methodka display info oo ah kuwa ay soo dhaxlayaan labada child class marka student waxaa gooni u ah attributeska subjects iyo student id iyo methodkii print subjectska teacherkana waxaa gooni u ah attributeska subject attributeska subject iyo teach oo ah markaa method insha allah waxaan rajeynaya si fiican u fahamteen waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu